shandaranley iyo sidoo kale qaybtii labaad oo toddobaadkii hore sidaad la socoteen qaybtii koowaad ay inoo maraysay iyada oo Balayax iyo hooyadii ay kaftamayeen kana wada hadleen sidii guurka Balayax loo hirgelin lahaa. haddaba markii ay kaftankaasi dhamaysteen ayuu Balayax soo jeediyey horta inta aanu gudagelin jiidashada guurmeernimadiisa uu u baahan yahay inuu magaalada u muraadsado awr uu reerka ka gaxaysto. hooyadiina arrinkaas hadal kamay keenin oo hadal kamay soo celin waanay ogolaatay. Balayax iyo wiil cooli la odhan jiray oo ay ilmaadeer ahaayeen ayaa habeenkaas ciyaar gud u baxay, kadibna waxa ay afka saareen jihada bari ee beeshu ay u badnayd. qoodh iyo xero markii ay sawaxanka reerka ka baxeen ayay geed cufan dugsigiisa fadhiisteen. dabadeedna waxa ay shanqadh dhegaysteen sacab iyo sawaxan ciyaareed. dhaqdhaqaaqii ayay joojiyeen, dhagahana laydhi ayay la soo raaceen. cida adhyaha, laaqinta orgiga qooqan, dananka dameeraha iyo sawaxanka xoolaha ee hareerahooda ka baxaya ayaa cabbaar dhagahooda mashquuliyey. hase yeeshee xoogaa kadib waxaa dhagahooda ku soo dhacay cod iyo ciyaarta saareyda la yidhaa oo meel daaqsin geel u jirta ka balwanaysa. kadibna markii ay hubsadeen inay ciyaar tahay ayay labadoodiba hal mar yidhaahdeen wallee way baxaysaa. kadibna inta la kaakacay oo afka la saaray jihadii ciyaartu ka baxaysay ayaa dhababaco dhagaha la isnabay. rucle iyo orod waxa ay kaymaha cufan ku sii dhex jiraanba oo ay dhawaaqa iyo jiibta ciyaarta kolba laydhu ku beer qaadaba waxa ay ku soo baxeen golihii habeenka ciyaarta saareyda loo butaystay oo laga weegaaray kax bannaan. waa 14 intuu dayaxu mudh baxay cirka xuduntiisa isku beegay ay fallaadhaha iftiinkuna arlada dharaar ka dhigeen. waxaa gegada ciyaarta isku helay dhalinyaro jibada iyo balwada ciyaarta saarka u suuqmay, kuwaas oo ka soo kala baxay guryahooda caanaha gadhoodhka iyo maydhanaanka ahi ay weelasha ku qotamaan, ciirtana la daadiyo. golaha ciyaarta waxaa si faraawil ah ugu heegaaman qaanso gabadh ah oo intay sararta iyo garbaha isa saareen raxlada jaanta kaga daryaaminaya oo aad jaanqaadkooda moodo mawjad badeed oo haraaciyaysa. intaa waxaa dheer luuqda sida fardaha u dananaysa iyada oo aanay marnaba isla waayeyn jaanta cagta, jiibta codka iyo jamalka dhawaqa codka. waxaa ciyaarta saareyda ka dhex halowsiyaya wiil qalambaawi ah oo marka uu ku dhufto hoobaleyda ay luuqdiisa gabdhadaayo islaamaha kutubaha wataa ay usha u soo qaadanayaan. waa qowdhanyare. waa marka ay xaraaradda cirka gaadho ee ilmo ciyaar yaqaan usha lagu kala horayo. Balayax iyo cooli markii ay ciyaarta qoobka soo geliyeen waxaa dhexdooda riblaynaysay timadheer gabadh ah oo agmarkeeda naftu ku raaxaysanayso, guudkeedana ka duulayaan. lama se aqoonsan reerka ay ka soo baxday ama ay ka soo ciyaar gudday. Balayax oo eebbahiba u siiyey luuqda baxsan oo marka uu ciyaarta ku qaado hablaha sida caanaha ciirta loo lulo u lushaan ayaa ciyaarta jeeniga geliyey oo ku dhuftay luuqdiisii cudoonayd, waxaana ereyadii uu ku dhawaaqayay habeenkaasi ka mid ahaa: hobey hobey hobey, hablow weli qaadka maan baran, ragga qaayib iyo laan, qoolmadoobe iyo hawd, qowldaajiyaan ahay. caawadan qudheedana anigoo maryaha qubay, qalbi idhoon hurdada laday, ayaa qaraxa sacabkiyo qalaadkiinnu ii baxay. hablihii qaali iyo qadar, qorshe iyo ogaa socod, qalbigaa idin doortee, qaayibee nabad ma sheegteen, qoyskiinnu waa kee. kadibna markuu Balayax sidaa yidhi waxaa u jawaabtay bullo gabadh ah oo tidhi. toddobaadka dambe ayaannu halkaasii ka sii wadi doonnaa sheekadii shandaranley.